السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba News of Professionals. وكورسدني إنجليشكا وأنا real English phrases ومادتني real English phrases وكبرنا ويرها أما الجملة لها الله استعمال إنجليزكا وأنا 10 كتضبط 10 كان مانتا وحاول كمل أمريا 5 ways to ask someone to do something 5 ways وشنها to ask someone oo qof kaga dalban karto ama ku weydiisan karto someone else qof kale to do something inuu wax kuu sameeyo more formal hadday tahay arrin formal sida business iyo qof aad aqoonin markaad la hadlayso waxaad dhihi kartaa would you mind marka waa kabacdi wixii aad rabtay inuu kuu qabto ayaa u diraysaa would you mind markaad dhahdo seed u aragtaa camal waay would you mind seed u aragtaa tusaale ahaan would you mind opening the window qofka waxaad ka codsanaysaa inuu daaqada kuu furo markaas waxaad leedahay would you mind opening the window sidaas daaqada hadaa furto oo kale ama daaqada fur oo kale daaqada fur bay ka dhigantay would you mind opening the window marka would you mind waxaad ka hormarinaysaa wixii aad dalbarabtid would you mind giving me that and that waxa inay see u aragtaa oo kale marka would you mind see u aragtaa weye ama wax meel ka qabtaa would you mind opening the window waa adoo dhahday fadlan albaabka fur oo kale daaqada fur oo kale dhahday lamid waxaa kala dhigataa could you please kabacdi wixii arintaa sheegaysaa could you please tusaale ahaan could you please turn off the lights fadlan nalka ma damin kartaa could you please turn off the lights fadlan nalka dami oo kale ama nalka ma damin kartaa oo kale could you please turn off the lights fadlan nalka ma damin kartaa oo kale marka qaabka ixtiraam kale ayaa wax isku weydiiyaa nalka dami in la dhaho kale waa ma arrin magaalnimo informal hadday tahay oo qofkaas ay caadi tahay oo qofka aad isgaranaysa kale hadii kartaa can you waxa ma ii samayn kartaa tusaalehaan can you pass me the chicken digaaga ma iisoo gudbin kartaa can you pass me the chicken digaaga iisoo dhiib مثلا cuntaa la cunayo miisku saarnaa can you pass me the chicken digaaga iisoo dhiib kala dhigi kartaa waxaa kaloo jirtaa please oo fadlan please send me the information fadlan warbixinta iisoo dir haddii kale please kabacdi wixii la dhigi kartaa please turn off the lights aa kala dhigi kartaa laakiin waa laga kala fiicanya marka please send me the information fadlan warbixinta iisoo dir waxaa ka dhigataa I'd appreciate it aad baan u qadarin lahaa if you could hadda waxaa samayn lahayd tusaale ahaan I'd appreciate it aad baan u qadarin lahaa if you could wash the dishes haddaad weelasha dhaqan lahayd oo kale marka qaabo kaasoo dhigi kartaa tan waxa weeye 5 ways to interrupt someone hal dhowr qab oo qof hadlayay aad hadalka uga dhex geli karto 5 ways to interrupt waxaa la qofka markaad ka dhex gasho wixii interrupt waa waxa uu socotay markaad qasto ama dhex gasho baa dhaha 5 ways to interrupt someone dhowr hab oo qof ama hadlayay ama hawlhayay oo kale aad ku dhex geli karto sorry to interrupt waan ka xumahay inaan kaa kala jaro ama aan kaa dhex galo but kabacdi wixii baa sheegaysaa waxaad kala dhigi kartaa excuse me iga raalihow could I talk to you for a minute hal daqiiqa ma kula hadli karaa excuse me iga raalihow could I talk to you for a minute hal daqiiqa ma kula hadli karaa waxaad dhigi kartaa excuse me do you have a minute hal daqiiqa ma heli kartaa tusaalehaan goorma when interrupting a conversation between two other peoples marka laba qof oo kale aad maaragtay hadalka ka dhex gelayso to talk to one of them si aad midkood la hadasho laba qof oo wada sheekaysanaysaa u timid markaasaa harta mid kamid inaad la hadasho saana dhahaysaa excuse me could I talk to you for a minute hal daqiiqa ma kula hadli karaa ama excuse me do you have a minute hal daqiiqa ma heli kartaa markan oo kale goorma when interrupting markaad dhex gelayso weeye a conversation wada sheekayso between two other people laba ruux oo kale to talk to one of them si aad midkood oo la hadasho halkan oo kale goorma dhigi kartaa could I chime in here halkan ma kaga soo boodi karaa could I chime in here halkan ma kaga soo dhex geli karaa goorma la use this one when interrupt a discussion among many people dad badan oo doodayo adigana ka mid tahay markaad rabto inaad ka dhex gasho ayaa leedahay could I chime in here halkan ma kaga soo boodi karaa halkan ma kaga dhex geli karaa ayaa leedahay tan oo kale fiiri sorry waan ka xumahay I just want to say that waxaan rabay inaan dhaho sorry waan ka xumahay I just want to say that waxaan rabay inaan dhaho wixii baad marka sheegaysaa formal markay tahay kale may I have a word hal eray ma dhihi karaa may I have a word hal eray ma dhihi karaa qaabkaasna u dhigi kartaa waayahay habkan waxaan kaloo ku baranaynaa 10 ways to encourage someone 10 hab oo qof lagu dhiirigeliyo 10 ways
to encourage someone toban hab oo qof lagu dhiirigeliyo waxaad dhigi kartaa keep up the good work shaqada fiican ee wada sii wad waxaa kaloo dhigi kartaa that was a nice try kaas wuxuu ahaa isku day fiican say this after someone made a good effort qofka markuu dadaal badan sameeyey but fail uu fashilmay waxaad dhigi kartaa kale that is a real improvement taasi waa that is a real improvement waa horumar wanaagsan that is a real improvement waxaa la waa horumar wanaagsan oo dhab ah marka improvement waa wax marka horumarto ama saro qaado real dhab ah waxaa kaloo dhigi kartaa you are on the right track wadada saxdeed baa ku taagantahay you are on the right track wadada saxdeed ayaa ku taagantahay ama waa saxan tahay waxaad dhigi kartaa you almost got it waad heli gaadhay waad ku sigatay inaad hesho waxa markay xoogaa aad ku yar fashilantaa waxaad dhigi kartaa you have almost got it waad heli gaadhay you are doing great si fiican baa wax u wadaa you are doing great si fiican baa wax u wadaa don't give up ha isdhiibin hang in there halkaa kaga hay when someone is currently have difficulty marka qof xoogaa dhib iyo uu qabo ayaa kana lagu dhiirigeliya waxaa leedahay don't give up ha isdhiibin ama ha niyad jabin hang in there halkaa kaga sahay don't give up ha niyad jabin waayo ama ha isdhiibin hang in there aa kaloo dhigi kartaa halkaa kaga sahay waxaa kaloo dhigi you can do it waa samayn kartaa isku day you can do it waa samayn kartaa waxaa kaloo dhigi kartaa give it your best shot isku dayga ugu wanaagsanaa isku day best shot waxaa leedahay best try best effort adiga dadaalka ugu badnaa ku bixi ama isku dayga ugu fiicnaa ku day give it your best shot isku dayga ugu fiicnaa ku day marka best shot waxaa laga wadaa best try isku dayga ugu fiicnaa best effort dadaalka ugu fiicnaa waxaa kaloo nice job shaqo wanaagsan you did great waa cajiib oo kale after person has done something good markuu qof wax wanaagsan sameeyo kale ayaa kuwan hal dhahaa waxaan kaloo baranaynaa 5 phrases for complaining 5 phrase oo aad markaad cabanayso waxaad dhigi kartaa for complaining markaad cabanayso arrin baad ka cabanayso waxaad dhigi kartaa I am not happy about this arrinkan kuma faraxsani I am not happy about this arrinkan kuma faraxsani waxaad dhigi kartaa I'm sorry waan ka xumahay but this is unacceptable tan lama aqbali karo I'm sorry waan ka xumahay but this is unacceptable lama aqbali karo kale waxaad dhigi kartaa I'm not very satisfied with kuma qanacsani tusaale ahaan this product alaabahan this situation xaaladan I'm not very satisfied with aad uguma qanacsani tusaale ahaan this product alaabtan kuma qanacsani I'm not satisfied with this product alaabtan kuma qanacsani ama waxaad dhigi kartaa I'm not satisfied with this situation xaaladan kuma qanacsani informal waxaa ka dhigi kartaa marka informal tahay oo kale halkan I can't stand it when oma dul qaadan karo tusaale ahaan I can't stand it when the internet is slow markuu internetku slow yahay oma dul qaadan karo waxaa kaloo dhigi kartaa tanna waa informal this sucks wax aad u xun this sucks haddaad dhahdo aad ay u xuntaa arrintan aan leedahay marka waad si xanaaqsan baad dhahay this sucks aad iyo aad baad mahadsantiin fadlan casharadan